moogtahay in mararka qaar marka carruurta ku dhashaan dalka Shiinaha waalidiintu waxay isticmaalaan xabag yar si ay u kala furaan baalasha indhaha carruurtooda. waarun saaxiib waxaad maqashay qaar ka mid ah carruurta Shiinaha waxay soo dhashaan iyaga oo aan lahayn indhahoodu laalaabka isha ka sarreeya. macnaha qofka caadiga wuxuu leeyahay hal laalaab oo isha ka sarreeya sida sawirkan kaaga muuqda oo kale, balse carruurtani ma laha. taasoo macnaheedu yahay in baalka kore ee ishu uusan lahayn xariiqdii u sahlaysay inuu si fiican u furmo. xaaladaha qaarkood tani waxay u keentaa in aanay indhahoodu si buuxda u furmi karin markay dhashaan. si arrintaas loo xaliyo, waalidiinta qaarkood waxay isticmaalaan xabag yar si ay uga caawiyaan baalka ishu inuu u kala furmo si fiican. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, arrintan sidee ayaad u aragtaa? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto youtube-ka iyo facebookka profileka saaranna aad subscribe dhahdo.